madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jaariyada reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Sultanka Imaaraadka Carabta kala qayb galay munaasabad ballaaran oo aad loo soo bilay oo ay ku soo dhaweynayaan wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee socdaalka shaqo ku jooga dalka Sultanka Imaaraadka Carabta waxaana munaasabadan lagu soo bandhigay suugaan ka hadlaysa qiimaha wadaniyadu ay leedahay iyo guulaha Somaliland u hirgalay muddadii ay jirtay waxaana jaaliyada reer Somaliland muujiyeen dareenkooda wadaniyadeed ee ku wajahan sida ay qarankooda u garab taagan yihiin madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jaaliyada reer Somaliland ee ku dhaqan Imaaraadka Carabta uga mahadnaqay kaalinta ay kaga jiraan dhismaha dalkooda waxaana madaxweynuhu uga xog warramay guulaha u hirgalay intii uu ku sugnaa dalka Sultanka Imaaraadka Carabta jaaliyada reer Abdibay oo ku sultan wadaninimo iyo halgan iyo dibudhis iyo waxtar ballaaran dadka u leeyihiin aad iyo aad loo mahadsantihiin socdaalka iyaga imika dawladda Imaaraadka martiqaaday waa uga mahadnaqaynaa Sheekh Khalifa oo madaxweynaha dalkan waa uga mahadnaqaynaa Sheekh Maxamed oo dhaxal sugaha waa uga mahadnaqaynaa رئيس الوزراء محمد راشد وهو مهضمين كل حاجة برايم مينستر ووزير المحتوى ونك يجعل كوا كان كورونا سيدي وعناي يسوقها لنا دلكين يوحنا كوا هذا إنه يعني رجلتي ولسيا كرسولدي وكجوا كيرا هم الحديث كلام آد بنوه لك وحنا كوا هذا وحيارها أمهم سن horta waxa aan ku hadlo waxaan ku Soomaaliland 13 sano ayay dawladda shan madaxweyne dooratay oo saddex doorasho isku bedeshay oo aan ka Ingiriiska Afrika iyo Bariga Dhexe iyadoo aan la ictiraafsanayn ayay dalkeeda xuduud galbeed iyo bari oo koonfur doorasho gashay orinteeda loo yeeday dimuqraadiyad ay dawladdu waa wada xaj karnaayeen oo haddana khilaafaadkeeda iyadoo xalisatay oo hore uga socotay waxay dhamaysatay wixii shuruuc ahaayeen dawladda rabay oo ciidan leh oo garsoor leh oo waxbarasho leh oo horumar leh kolba intii dhaqaaleedu ahaa hase yeeshee adduunku taa ma tixgelin waxa la ictiraafo looga eexday nin lagu doortay iyadoo ciidan ajnabi waardiye ka hayo oo dhowr boqol oo qof waardiye ka ay doorteen oo aqal lagu xereeyay oo aan kalsooni dad wadan oo aan dalkiisa xukumin oo ku tiirsan lafihiisa inay leeyaan dad shay ayaa la ictiraafay oo waliba naleeyay ku taliyeen balageysta anagu taasaan diiday haddaynu wada hadlayno waxaan u baahanahay waxay ku badan tahay Somaliland oo qoonsataan baa wax lagu hagaagayaan balda taalka ka day waxaan kaloo wax tari maayaan waxa u roon waa sharafta iyo karaamada kursiga caalamiga kama didin waa soo dhaweeyay Somaliland heshiis baad la gashay mid base military aad la gashay mid ganacsi aad la gashay hase yeeshee dadka aad la gashay ee Somaliland meel wari jooga ma waa maxaabiis maxbuus waa qofka aan socon karin ee aan meel kale tagi karin hadduu abidda joogo waa maxbuus oo waxa ka dhacaysa baasha inay qaamada oo meel u dhaqaaqa maray oo dalka ma dhex socon karo kaygana ma iman karo hadduu Soomaaliya joogana baasaboorkii laga dhaxeeyo waa culuuro wax ku fudud wala waa tixgelisaan kaayagina ma tixgelisaan marka ummadda dhamma meel u baxdo ma laha marka dadka dhibaatada qaba haddaad gacan ka doonayso adigu bilowba baasaboorkooda aqoonsada horta waa muhiim ah waxaan u la tagayaa iyadoo garto caynkaas madaxdiisa rajo weyn oo ka qabnaa suurto gasho garowsado waxa ku wada dareenka qabana insha Allah dhawaan jawaab uu keenayna aan ku farxana arrinta tasacad waxa xoolaha waxaan soo garanay oo ninka dhalinyarada isla ka mahadnaq waxba idin bari baynee xoolaha iyaga lagu filanay ninka Sacuudiga saaxiibtii nooga ergeeyo aad xoolahan meesha baradan maalin dhaanriya intaas aan lagu filan wax barnaamij waxaan ku heshiiyay war qodobada waa baday fadhiga lagu dhamay kara iminka
waxaanu yeernaa mid walba dadkii qaabilsanaa inay iska hortagaan. waxaa kale oo madasha hadallo kala duwan ka soo jeediyey gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID injineer Faysal Cali Waraabe, wasiirada wasaaradaha khayraadka biyaha Saleeban Cali Koore, qorsheynta qaranka Cawaale Ibrahim Shirwac iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka isku tagga Imaaraadka Carabta Ambassador Baasha Cawil Cumar iyo xubno ku hadlayay magaca jaaliyadda iyo fanaaniinta reer Soomaaliland. madaxweynuhu casuumay anaga iyo Cabdiraxmaan Ciro wuxuu nagu casuumay oo nagu warramay in casuumadani timi naga codsaday inaanu safarkiisa raacno. Cabdiraxmaan wuu cudur daartay xumaan ku maqnaa hawl badan u taalay. marka waxa halka ka soo yeelan saddex xisbiba iyo baarlamaanka iyo guurtooda inay isku raacsan yihiin safarkan iyo heshiiskii saddex geesoodka ahaa. qof kasta gurigiisa lagu soo celinaya waa inaan guriyeena hagaajisna waaya martida ka baxna ilaa 60kii marti bayna calankeena waa soo ceshanay insha Allah ta'ala waa inuu kaga dhabaynaa iyo inta la geeyaa jaamacadu carab geeyaa ee la geeyaa taasna inaga inagu xidhantay maanta waxaan idinku bishaareynaya xuduudka Soomaaliland waqti uu maanta ka sugan yahay 726 sanadood oo aan Soomaaliland ka shaqeynay waqti uu xuduudka Soomaaliland ka sugan yahay iyo waqti dawladda Soomaaliland ka awood weyn tahay iyo waqti ummaddu iskaga kalsoon tahay iyo waqti ummaddu iska raacsan tahay maanta ma jirto. ummadda Soomaaliland waa dad jawaab ka bixin karta cid alla cidii ka hortimaada danahooda gaarka ay u leeyihiin cidna duulaan kuma qaranka aan maanta goobjooga u haynaa waa qaran dhaqaaqi kara oo isku filan oo buuxiyay shuruudihii qaran u lahaa. marka laga reebo waqtigii qarannimada Soomaaliland ay la soo noqotay 1990kii waqti ay ka exciting san tahay ama rajada Soomaaliland ay ka fiican tahay maanta inaanan anigu hore u arag. waxaan idinku bishaareynayaa dawladda aan xubinta ka ahay waxaan wali ku jirnay honeymoon balada period kan ku jirno laakiin waxa muuqata ama saansaanteeda aan arkaya 9 bilood marka la gaaro inay wax dhali doonto aqoonsigii inuu meel dheer u soo joogo ayaa ay muuqda. maanta Soomaaliland dunida darafyadeeda ayaa laga hadalhayaa waxyaabaha afka qalaad lagu yiraahdo household in ay arrin Soomaaliland tahay magaca Soomaaliland ama New York Times ha noqoto ama Reuters ha noqoto ama South African newspaper ka soo baxaa noqoto Soomaaliland waxay ku jirtaa saaxadda adduunka maanta. alxamdulillah waxaan ku aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku martiyo Abu Dhabi waxaan soo dhaweeyay caawa farxad badan baa inaga muuqata. waxaan filayaa in ifqaalihii ictiraafku inuu noo soo dhow yahay insha Allah imaaraadkuna noqon doono ictiraafkii badan malaa inuu raadinaynay inuu Abu Dhabi malaadu ay fadhiyaan ay u eg tahay